dagaalkii labaad ee adduunka kadib ilaa iyo maanta Maraykanku waxuu si toos ah u weeraray 4 dal. 4tan dalna waa Vietnam, Soomaaliya, Afghanistan iyo Ciraaq. 4 dal asbaabo kala duwan ayuu ugu duulay, intaba uu ku fashilmay. Haddaba muuqaalka waxaa ku arkaynaa 4 dal sababtuu ugu duulay. Vietnam sanadu markii 1954 Faransiiska ayaa iskaga baxay markii uu ku guuldareystay inuu ka guuleysto hogaamiyihii Ho Chi Minh. Isla sanada Vietnam waxaa isku qabsaday 2 kooxood, kooxihii Shuuciyiintii waqooyiga jiray oo Ho Chi Minh hogaaminayay oo taageero ka helay midowgii Sofiyeetka iyo Shiinaha, iyo koonfurta ay hogaaminayeen kooxihii kabitalistiga reer galbeedka ka helaya gargaarka. Laakiin sanad kadib sanadu markii 1955 Maraykanka ayaa soo farageliyay iskagoo isle kooxihii Shuuciyiintii waqooyiga jiray inay dalka oo dhan wada qabsanin, sababtoo ah xilligaa waxaa socday dagaalkii qabooba ee u dhexeeyay Shuuciyiintii Ruushka iyo kabitalistiga reer galbeedka uu Maraykanku hogaaminayo. Dagaalku wuxuu socday ilaa 20 sano, sanadii 1955 ilaa sanadii 1975. Maraykankuna hadafku lahaa ma uusan gaadhin, waa uu ku guuldareystay 20 sano kadib. Hadafkiisii ahaa ka hortagga Shuuciyiintana waa uu ku guuldareystay, oo Vietnam oo dhan waxaa wada qabsaday Shuuciyiintii waqooyiga joogay. Soomaaliya markaa u dhacay xukunkii Siyaad Barre, dalka waxaa ka bilowday dagaalkii sokeeye. Dagaalkii sokeeyena waxa uu dhex marayay kooxo hubeysan ay hogaaminayaan generaaladii hore. Dagaalkaas sokeeyena wuxuu sababay gaajo aad u daran iyo barakac. Qaramada Midoobeyna waxay bilaabeen inay musaacadaad iyo gargaar u fidiyaan dadka masaakiinta. Laakiin warbaahinta Maraykanka iyo warbaahinta kale reer galbeedka waxay faafin jireen musaacadaadka iyo raashinka ee qaramada Midoobey bixinayso waxaa boobi jiray oo qaadan jiray generaaladan iyo kooxahan hubeysan si ay eegu u isticmaalaan amba ay u sii iibgeeyaan si ay ugu soo iibsadaan hub. Haddaba Maraykanku wuxuu taarget ka dhigtay Generaal Caydiid. Xilligaana ogow, midowgii Sofiyeetka ayaa dhacay, adduunka hal quwad ayaa ku soo hadhay, Maraykanka oo dhahay man ashaddu minna quwa ana rabbukumul aclaa, adduunka dhan ku dhahay quwaddii caalamka xilliga ugu weyneyd ayaa hubkeygii askarteedii sida gaarka u tababarnaa Soomaaliya keentay keliya si ay u soo qabato hogaamiye kooxeed ku dagaalamayo hub aad u fudud, Generaal Caydiid. Laakiin dagaalku wuxuu socday 15 saac oo keliya. Maraykankuna wuxuu la kulmay guuldarro aad u weyn. Helikobtaradiisii casriga ahaa xilliga ayaa laga soo riday, askartiisii in badan waa la dilay, dhulka ayaana lagu jiijiiday. Kadibna wuu iskaga cararay oo ku fashilmay wixii uu rabay soo qabitaanka Generaal Caydiid. Afghanistan 2001 Maraykanka waxaa diyaarada Madaniya oo la afduubta lagu dhiftay 2 daarood ee la dhihi jiray 2 daarood ee mataanaha ah. Weerarkana waxaa sheegatay kooxdii Al-Qaacida ee madaxdeedu ku sugnaayeen inta badan dalka Afghanistan. Madaxweynihii xilliga Maraykanka George Bush, Taliban oo maamulaysa Afghanistan wuxuu ku dhahay noo soo qacan geliya madaxda Al-Qaacida. Talibanna way diiday. Maraykanku askartiisii ayuu soo qaatay 44 dowladood oo gaal iyo muslim isugu jirana uu soo kaxaystay si uu kooxda Al-Qaacida uga takhaluso. Talibanna xukunka uu ka tuuro dalka Afghanistanna uu ka dhiso xukuumad iskaga taabacsan. Laakiin muddo 20 sano kadib arrinka waa uu ku fashilmay, sababtoo ah kooxdii Taliban ee ka talinaysay Afghanistan ayaa isdhiibi weyday. Xukunka waa ay ka rideen, laakiin buuraha ayay u fadhiisteen, dagaalka goriilaha ayay la ciyaareen. Muddo 20 sano kadibna Maraykanku hadafkiisii waa uu gaari waayey uuna ku fashilmay. Dalkana waxaa dib u qabsaday kooxdii yareyd ee Taliban, waxayna ka takhaluseen dowladda ay muddo 20 sano dhisayeen oo hubkii ugu casrisanaa ay ku hubeeyeen askar ka badan 500,000 oo qofna. Laakiin koox yaroo buuraha ka dagaalamaysa ayaa timiday, si fudud ayayna uga takhaluseen. Ciraaq 2001 markuu dalka Afghanistan ku duulay Maraykanku wuxuu u soo dhigtay dalkii kale Ciraaq oo xilliga maamulayay Saddam Hussein, waxauna ku eedeeyay inuu Saddam Hussein dowladdiisu ay haysato hubka sida xun wax u burburiya. Kadibna sidaas ayuu ku soo galay dalkii Ciraaq. Isla markii yaradba nidaamkii Saddam Hussein ee keligii taliyaha ahaa waa uu riday, laakiin hadafkii ahaa inuu Ciraaq ka sameeyo dowlad
Maraykanka taabacsan waa uu ku guul daraystay sababtoo wuxuu la kulmay iska caabin aad u fiican. Jabhado kala duwan ayaana ku kala furmay. Ugu dambeyn 2011 ayuu iskaga baxay dalka Ciraaq, isagoo waxa uu sheegayena been ay noqotay. Hubka sida xun wax u burburiyuu sheegayay been ayay noqotay. Nidaamkii Saddam Hussein inuu rido kadibna dowlad iskaga taabacsan ka sameeyana waa uu ku fashilmay. Imikana dowlad kaloo shanaad ayuu rabaa sidii oo kale inuu ku sameeyo. Askartiisa au keeno kadibna uu dhaho nidaamka ayaa bedeli, nidaam aniga i taabacsan ayaa ka sameynay. Dalkaasna waa dalka Iiraan. Dalka Iiraanna maahan 4tii kale daluu sida kediska u soo galay. Dalka Iiraan waa dal isku sii diyaariyey muddo 50 sano ah ka badan. Imika wuxuu ku kooban yahay oo keliya inuu dusha ka duqeeyo, laakiin askartiisa hadday si toosa u soo galaan waxa ka raacay wax 40 dal ka raacay wax ka xun.